السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا إسلام صاحبي ما كنت جوتين لما أنت ما حد لي هاي عدو جيسي وصاحبك أكله يس يعني سيد اللو قاعد قبل عدو كنت على قارسته يعني ما كان لي هاي تاتر أساس أولي عبانك وحرب إن دقينا يا هماسان يعني لما أنت ما حد لي هاي فضل هذا موقع كان أكاش لاقي سارة هذا كين نديس لاقي سارة وكما ستين عم بلان عندنا قبل عد صبرتين وأنا كاش أذيك laakiinse ma ogid in ayadana ka heshay. Waa run in dumarkiin kuwa dareemooda banaanka keena in ka badan ragga, laakiinse waxaa jira dumarka qaar ee ay fahmi karin halka ay adiga ku joogaan. Si kastaba haddii gabadhi kaa qariso dareemaheeda, mar walba waxaa jira calaamado ay banaanka keento. Calaamadahan soo socda badankooda haddii aad ku aragto way kaa heshay gabadha. Nambarka koowaad, si fiican ayay kuu dhageystaa adiga. Tani waa calaamad sheegta in gabadhi ay kaa heshay adiga. Tusaale, waxaad la qaadataa wada sheekaysi yar oo aad kugu saabsan adiga. Kadib waqti sug bil ama isbuucyo waxaad wax ka weydiisaa waxyaabihii aad usoo sheegtay, laakiinse si caadi ahaan u weydii ayada. Haddii xasuusto waxyaabahaas aad usoo sheegtay ayada, way kaa heshay gabadha. Lambar 2, caawimaad bay ku weydiisaa adiga. Laga yaabay inay dhibaato qabsato ayada, adiga ayaa jeceshahay inaad noqotid qof ka caawiya ayada. Teeda kale si caadi ahaan kuma weydiisan karto inaad xiriir samaysaan ayada, laakiinse waxay ku weydiisan kartaa caawimaad oo keliya. Tani haddii aad u diiddo waa caadi, marka dareemeedu wax ma u dhibaayo. Nambarka 3, codkeedu wuu isbedelaa. Waran waxaad u baahan tahay sida codkeedu yahay inaad ogaatid sida codkeedu yahay marka ay asxaabteed la hadlayso ama ay dad kale la hadlayso. Marka ay kula hadlayso adiga, waxay isku day doontaa in codkeedu ugu wanaagsanaa ay kula hadasho ayada. Nambarka 4, eeg luqadda jirkeeda. Ayada ma rabto inay dareemaheeda banaanka keento, laakiinse jirkeeda ayaa khiyaanaya ayada. Eeg haddii markasta ayada kusoo eegto, haddii kugu dhigto waxyaabo badan, tan kale ay gudubto indhaheeda, fiiri sida ay dareemayso ayada. Haddii isboojeyso way kaa heshay gabadha. Nambar 5, asxaabteedu wax badan ayay kaa ogyihiin adiga. Asxaabteeda in badan bay ku yaqaanaan adiga. Ma rabto dareemaheeda inay ku tusto, laakiinse xaaladani asxaabteeda ayaa fashiliyay sababtoo ah wax badan ayay kaga sheekaysaa marka ay ayaga la joogto. Nambarka 6, way xishootaa ayada. Gabdhaha xishoodka badan waa kuwa aad ugu fiican qarista dareemahooda. Ma fahmi kartid ayaga, laakiinse hal wado ayaa jirto oo lagu ogaan karo. Si fiican u fiirso ayada marka ay adiga kula joogto, kadibna fiirso marka ay dad kale la joogto. Haddii si caadi ah ula dhaqanto ulana hadasho dadka kale, marka ay adiga kula joogtana xishooto ama ay aamusto, taasi waa calaamad kala sheegaysa inay kaa heshay qofta ayada ah ama inay ku jeceshahayba. Nambarka 7, way ka maseertaa gabdhaha kale ee asxaabtaada ah. Si caadi ah kuma dhehayso asxaabtaada waa ka maseeraa. Asxaabta gabdhaha ah way kaa qari doontaa gabdhahaasi kalena, si aadna ulama hadli doonto ayada. Sababtoo ah waqtiga ayada aad siin lahayd bay kaa qaadanayaan adiga. Nambarka 8, badanaa way kugu raacdaa wax kasta. Haddii aad aragto gabadh adiga kugu raacsan, wax kastoo sheegto inay aad kuu xiisayso adiga. Nambarka 9, way kuu dhool cadeysaa marka ay wax ku weydiisanayso ama markay wax kaa dalban rabto adiga. Dhool cadeyntaasina ma aha mid la soo qasbay oo farxad iyo dareen ayaa ku duugan. Nambarka 10, indhaheeda ayaa ka arki doontaa wax waliba. Inta badan aad indhaheeda eegto waa inta badan ee wax badan qarsoonaa oo arki doonto. I hope inaad ka heshay muuqaalkan. Laaksi haddii aad ka heshay muuqaalkan, waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka daawatay. Insha Allah tan iyo muuqaalka xiga insha Allah waxaan leeyahay bash barwaaqo reereen badheer subxaanahu wa ta'ala muuqaalka insha Allah. Bye bye.